بسم الله الرحمن الرحيم واد mahadsantihiin waxaa la ogsoon yahay isbedelka wadanka guud ahaan ka socda oo isbedelkan oo ah mid dhammaan shucuubta Ethiopia ka faa'iideysiga horumarinta ka qaybgalka maamulka suuban iyo ilaalinta xuquuqda insaanka iyo dimuqraadiyadda waa mid lagu xaqiijinayo taasina ay abuurtay midnimo ballaaran dalkeena oo dhan isbedelkaas waxa tababar socday in badan shacabka deegaanka Soomaalida cabashooyin kala duwan ka jireen dhibaatooyinka xadgudub xuquuqul insaanka xadgudub xagga sharci darrada ah dhibaatooyin maamul xumo ballaaran oo shacabku ka cabanayeen ayadoo taas la raacayo waxay dawladda dhexe isku dayday in wada hadal kala duwan la sameeyo hogaaminta deegaanka iyo shacabka deegaankaba waxaa la ogsoon yahay ra'iisul wasaarahana Dr. Abiy Ahmed socdaalkiisa ugu horeeyay wuxuu ahaa socdaalka uu deegaankeena Soomaaliyeed uu ku yimid oo magaalada Jigjiga odayaasha Soomaalida oo dhan ay u dhan yihiin uu kala hadlay taas oo muujiyay inuu deegaanka shacabka wax la qabanayo ka faa'iideysiga horumarinta ka qaybgalka kala duwan ee horumarineed iyo maamulka suuban iyo si dhibaatooyin ka jira deegaanka loo xalin lahaa iyo dimuqraadiyadda iyo in xuquuqul insaanka la ilaaliyo iyo dhibaatooyin kala duwan in la xaliyo iyo ballan qaadayaheed ayadoo taa la raacayo wada hadallo kala duwan iyo hogaaminta deegaanka siyaabo kala duwan la sameeyay ayadoo wada hadalladaas ay jiraan wada hadalladaasna in dhibaatooyinka deegaanka lagu xaliyo oo deegaanka isbedel inuu ka yimaado isbedelka dalku ka dhacay inuu deegaanka ka hirgalayo taas ayadoo laga duulayo iyo codsiga shacabka odayaasha kala duwan ayadoo laga duulayo dhibaatooyinka shacabka haysta ayadoo laga duulayo rasaaruhu wuxuu kala hadlay marar kala duwan hogaaminta deegaanka si isbedel ka wadanka oo dhan ka dhacay deegaanka Soomaalida uga hirgalo sidaasna ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo waara horumarin waara iyo dimuqraadiyad iyo in la ilaaliyo xuquuqul insaanka shacabka mid lagu dhiirigelinayo ayadoo taas ay socoto hogaaminta deegaanka oo in yaro kooxa waxay ku talaabsatay in dhibaatooyin ballaaran uu deegaanku ka dhaco magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka kale deegaanka Soomaaliyeed carqalad ballaaran ba ka dhacday taasoo dhimasho badan la geysatay hanti badanna shucuubta kala duwan Ethiopia iyo Soomaaliya lagu boobay taasna amaan darro ballaaran deegaankeena keentay waxaa kaloo dhacday in xoogga booliska gaarka deegaankeena lagu soo aruuriyo agagaarka Jigjiga iyo meelo kala duwan ee deegaanka ah taasoo jidgooye iyo arrimo qaarkood lagu sameeyay taasna amniga qaranka oo dhan khatar gelisay marka dhibaatooyinka magaalooyinka Jigjiga ka dhacay iyo meelo kale waxaa aad u foolxun boobka iyo dilka iyo heedaha iyo dhismooyinka diinta ah iyo meelo badan qaarkood lagu gubay taasna mid matalayso shacabka Soomaalida ma aha cidii dhibaatadaas ka dambeysay ama ku sifoogday dawladda federaalka waxa la sameeyay koox baaritaan degdeg ah sameeya dhibaatooyinka deegaanka ka dhacday iyo baaritaan degdeg ah la sameyn doona sidaasna sareynta sharciga sidii loo ilaalin lahaa ayaa loo talaabsan doonaa marka maadaama dhibaatooyinkaas ay sii ballaadheen hogaaminta deegaankuna oo controlka amniga deegaanka ay kari waayeen waxay codsi sameeyeen dawladda federaalka in amniga deegaanka uu gacanta ku caawiyo oo xaaladda uu dejiyo dilka iyo boobka barakaca dhibaatooyinka kala duwan deegaanka ka jira sidii loo joojin lahaa foodadan ballaaran ee ka abuurantay sidii loo joojin lahaa waa mid codsi heedaha federaalku ay codsadeen marka ayadoo ammaanka shacabka in la sugo ayadoo codsiga shacabka la raacayo ayadoo codsiga xukuumadda deegaanka inay dhibaatooyinkan ballaaran ee dhacday khalkhal geliskay dhammaan deegaanka iyo deegaanada deriska iyo dhammaan saameynna ku yeelatay dhinaca deegaanka Soomaalida iyo meelaha u dhow dhan waxaa marka codsigaas deegaanka Soomaalida xukuumadda deegaanka Soomaalida la raacayo iyo dawladda dhexe waxay go'aamisay in wasaaradda difaaca iyo booliska federaalka ah iyo hay'adaha amniga kale ee dawladda federaalka ay deegaanka
ay xasilooni iyo deganaansho ka abuuraan boobka iyo dilka iyo dhibaatooyinka badan shacabka loo geysanayo in la joojiyo inay ka howlgalaan ayaa maanta amar lagu siiyey madaxweynaha wasaaradda difaaca wasaaradda booliska iyo hay'adaha kale amniga dalka waxay saacadan laga bilaabo ka howlgali doonaan dhammaan jijiga iyo deegaankeena oo dhan marka waxaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed odayaasha la farayaa inay garab istaagaan ciidamada iyo hay'adaha amniga federaalka sida loo dajiyo loo xasilooni lagu soo dajiyo deegaanka Soomaalida waxa kaloo la farayaa dhammaan ciidamada gaarka liyu booliska dadaalo badan ay sameeyeen nabadgelyo badan bay ka soo qayb qaateen iyo faa'iido badan ay ummadda Soomaaliyeed u sameeyeen waa wiilal ummadda Soomaaliyeed waxa la farayaa in ayagoo la shaqeynaya ciidamada federaalka iyo ciidamada booliska federaalka inay si wada jir ah ay u shaqeeyaan dhibaatooyinkan fowdada deegaanka ka socda inay marnaba xubinkooda kamida uusan ka qayb qaadanin ciidankan gaarkana waa mid kamid ahaan doona isbedelka deegaanka oo nabadgelyo inuu ka qayb qaato loo baahan yahay marka xubnaha ciidamada gaarka waxa la farayaa in saacada laga bilaabo si buuxda oo la shaqeeyaan ciidamada federaalka iyo ciidamada booliska dalka si xasilooni iyo deganaansho deegaanka Soomaaliyeed oo lagu abuuro taasoo lagu joojinayo dilka iyo boobka iyo dhibaatooyinka fowdada dhammaan magaalooyinka iyo meelo kale ka dilaacay taasoo ummadda Soomaaliyeed iyo shucuubtooda dhan dhaawac weyn u geeyay marka dhibaatooyinka gaarka ah hay'adaha diinta lagu sameeyay ma aha mid matalaya ummadda Soomaaliyeed marka cidii kooxdaas ama dhalinyaraha ahaato ama cid kale oo amniga ka tirsan ahaato ama cid kale oo hogaamin ka tirsan ahaato waxay noqon doontaa mid baaritaan degdeg ah la sameyn doono guddi isku dhaf oo hay'adaha federaalka ee amniga iyo cadaaladda ayaa loo diri doonaa deegaanka sidii baaritaan degdeg u sameyn lahaayeen cidii arrimahaas ka dambeysay oo dhan marka mid sareynta sharciga iyo horgeynta sharciga la sameyn doono ayaa noqon doontaa marka shacabka Soomaaliyeed waxa loo baaqayaa inay hay'adaha amniga federaalka si buuxda oo la shaqeeyaan qaab dhismeedka amniga deegaankana waxa la farayaa inay si buuxda oo la shaqeeyaan hay'adaha federaalka sidaasna xasilooni iyo deganaan degdeg ah lagu abuuro reformka ama isbedelka qaab dhismeedka deegaanka iyo dib u dhiska maamulka iyo dib u dhiska siyaasadeed oo dhan mid wada tashi ummadda shacabka iyo xisbiga baarlamaanka iyo qaab dhismeedka kale ummadda Soomaaliyeed leedahay iskaashi wada jir dawladda federaalka mid lagu sameeyo dib u habeen lagu sameeyo noqon doonta waxaan leeyahay ka faa'iideysi ballaaran oo reformka wadankan ka hirgalay ummadda Soomaaliyeedna waa laga hirgelinayaa marka annagoo deegaankeena intaan xasileysano reformka wadanka laga hirgalay si buuxda ummadda Soomaaliyeed ka qayb qaata loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed shucuubta kale Itoobiya waxaan nahay ummad walaalo ah wada jir ah waligeena si walaaltinimo aan ugu nooleen marka taasna isla noolaanshaha walaalaheen shacabka kale waa mid in la sii xoojiyo ayaa loo baahan yahay tan kale darisnimada wanaagsan iyo walaaltinimada deegaanada dariska dhammaan deegaanka Oromiya iyo deegaanka Cafarta iyo dhammaan xadkana maadaama ummadeena in badan degan yahay marka deganaanshaha iyo xasiloonida oo dhan waa in gudaha dariska iyo dawladaha dariska aan nahay walaaltinimadeena nabadgelyada in si buuxda loo ilaaliyo loo baahan yahay marka arrimaha kale soo kordhona waa mid aan shaacin doono